السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal kusoo dhawaada channelkeeni Somali Gaar oo bartaan casharo aan runtii dadka faa'iideystaan. Saan hore u sheegnay waxaan bilaabi doonaa course ku saabsan maadada la yiraahdo Microsoft Excel 2010. Insha Allah casharkan waa casharkii koobaad. Waxaan filayaa inaad ka faa'iideysan doontaan. Si u jeedin casharka waxaa halkan nooga muuqda lix mowduuc aan ku qaado doono casharka. Mowduuca koobaad wuxuu noqon doonaa waxa la yiraahdo column waxaa la yiraahdaa line kan soo jeedin hadda highlight kan saaran ama hadda door column kaas la yiraahdaa oo istaaga dhamaan dhir. Okay, waxaa la yiraahdaa sidoo kale mowduuca labaad waxaan ku qaado waxa la yiraahdo row waxaa la yiraahdaa midkan jiifka marka joog iyo jiif kala yihiin sida wala soco. Marka waxaan filayaa inaan kala taqaan waxa la yiraahdaa column iyo waxa la yiraahdaa row. Okay, waxa ku soo haray waxa la yiraahdo paste, cut iyo copy. For example, hadda xarafka hadda aan copy marka haddaan dhaho control x dan macnaha waa cut marka control x waxaa loo isticmaalaa cut, control c waxaa loo isticmaalaa copy, control v waxaa loo isticmaalaa paste. soo jeed. Okay, hadda hadana marka hadana copy control z halkan amaahna paste ku dheerna waxaan marka control v. soo jeedin waa shaqeynaya ama waa qaacida sax ah. Okay, mowduuca afraad aan qaado doono wuxuu yahay la yiraahdo insert. Okay, hadda halkan waxaan ku qoray runtii waxa la yiraahdo name student ayaan ku qoray. halkan waxaan ku qoray galaaskooda, hal ID number aan ku qoray, waxaan ku qoray result. Okay, marka runtii for example meesha waxaan ku qoray afar arday, shan arday aan ku qoran rabay. marka ardayga shanaad waxaan doonayaa ku qoro Axmed iyo Xamdi inta u dhaxayda hadda leen kama banaan, hadda hal leen kama banaana, laakiin waxaan doonayaa in labadaas dhexdooda aan ku qoro. marka Xamdi aan dul tagayaa waxaan leeyahay marka right click aan leeyahay, insert aan leeyahay, kadib waxaan leeyahay halkaan waa marka option halkaan aad ka dooranaysaa. marka waa saan hore kugu sheegay column iyo row kala bar. waxaan leeyahay marka entire row ayaad leedahay, kadib waxaad leedahay okay. soo ujeedid halkaan waa ka banaanaada. marka halkaan waa geli kartaa Yusuf Ahmed Warsame. soo ujeedid inta u dhaxaysa Cali iyo Xamdi ee waxaan soo dhex gelinay Yusuf. marka waxaa la yiraahdaa kaas insert la yiraahdo. sidoo kale insert waxaa loo isticmaalaa hadda halkaan ku qoran tahay student name, class ID, result. soo ujeedin halkaan hadda aan soo galsho maadada. soo marka waxaan doonayaa student name iyo galaaska inta u dhaxayda inaan soo galsho maado ama subject. galaaskan right click leeyahay marka insert isticmaalaya isla meesha difaac wala soco. hadda marka waxaan soo gelinay row wahay. hadda waxaan doonaynaa waa column. hadda waxaan doonaynaa kadib column aad dooranaysaa enter leedahay. soo jeedid column ka soo galay, kadib waxaad leedahay subject. soo jeedid wax walba diyaar. Okay, mowduuca shanaad oo aan casharka ku qaadan wuxuu yahay waxa la yiraahdo color fill. Okay, kana marka highlight saarayna adoo muuskada haya color fill waa halkaas. soo jeedid ama fill color waxa la yiraahdo. hadda marka hadda ku dhufto waxa noqonaya yellow. soo hadda mowduuca waxa ku sameeyay color fill color badan soo jeedid. Okay, mar labaad highlight saar color waxa ka bedeli kartaa markaad color fill fiiriso wuxuu leeyahay falaar yar oo hoos u muuqan. taa ku dhufo color badan ku furaya marka. Okay, kana ka doqono. Okay, marka colorka markaan doorano waxa u jeednaa farti inaan loo jeedin oo ay midayna madow tahay. soo marka farta waxa ka bedelaysaa sidoo kale dooro mar la highlight saar color fill-ka waxa ku xiga xarafka A. sidoo kale wuxuu leeyahay falaar hoos u jeeda ka ku dhufo marka doorana cadaan. marka soo jeedid background-ki iyo fartiis malaha, fartu waa cadaan, background-kina waa blue dag waa. Okay, sidoo kale waxaan sameeynaa halkaan waxaan gelinaynaa type. highlight saaraysaa ama waa dooranaysaa, kadib halkaan imaanaysaa marka autofill-ka geeskiisan kale. sidoo kale wuxuu leeyahay falaar hoos u jeed. Okay, waa kana marka all borders ay ka dooranaysaa. halkaan marka wuxuu galshay soo jeedin wuxuu galshay table. hadda marka waa qurxiyo marka soo jeedin wax walba waa diyaarsan yihiin. waxaan doonayaa inaan subject-ga color gooni u yeelo. waa dooranaysaa waxa tagaysaa uu kaliyahay waxa la yiraahdo fill color ama color fill. aan ka dooranaysaa colorkaas. Okay, galaaska sidoo kale color gooni kaasaan dooranaya. Okay, ID-ga sidoo kale color gooni aan rabaa. Okay, sidoo kale result-ga color gooni aan rabaa. wax walba ku diyaar. sidoo kale magacyada salahan. Okay, kana laakiin waa inaan farta bedelo, farta cadaan waa inaan ka dhigaa. soo jeedin wax walba diyaar. halkaan kore colorkaas kore colors aan ka dhigaynaa. Okay, kaasaan ka dhigaynaa marka soo jeedin wax walba okay ku soo baxay. marka waxaan barnaa maanta waxa la yiraahdo column, waxa la yiraahdo row, waxa la yiraahdo paste, cut iyo copy. sidoo kale waxaan barnaa insert waxa la yiraahdo oo hadda column-na waa soo geli karnaa, row-na waa soo geli karnaa. sidoo kale waxaan barnaa color fill oo hadda soo jeedin hadda meeshan color badan ku isticmaal. color badan halkaan ku jira waxaasna color fill loo isticmaalaa. sidoo kale table waa kana soo jeedin halkaan waa table. soo jeedin hadda table aan ma qurxana
oo runtii u wanaagsanahayo xisaabaad tableku waa u wanaagsan yahay xisaab iyo wax walba aad isticmaalaysid oo kala soocaya columnska iyo rows. marka lixdaas mawduuc ayaa maanta barahaynay, waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysteen. fadlan haddii aad ka heshay casharkan ama aad ka faa'iiday, subscribe garee channelkana oo rukubo soo socda. sidoo kale la wadaag asxaabtaada oo u share garay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.